saynisyahanada cilmiga caafimaadka ayaa markii u horreysay soo bandhigay sawir faahfaahin dhammaystiran ka bixinaya cudurka kansarka. in ka badan 1,000 cilmibaarayaal ayaa soo bandhigay markii ugu horreysay sawir faahfaahin ballaaran ka bixinaya cudurka kansarka. saynisyahanadu waxa ay sheegeen in kansarka uu u dhigmo sawir ka kooban 100,000 oo qaybood, iyagoo intaa ku daray in wixii maanta ka horeeya aan wax xog ah iyo ogaal midtoona aan laga hayn 99% qaybaha uu ka kooban yahay cudurka kansarka. cilmibaaristan oo ah tii ugu mugga weyneed ee lagu sameeyo kansarka ayaa lagu daabacay wargeyska lagu magacaabo Nature, waxayna sawir iyo tilmaam buuxa ka bixinaysaa qaybaha kansarka oo dhan. waxay cilmibaaristu fududaynaysaa in bukaan walba loo qoro dawo u gaar ah nooca kansarka ee laga helay iyo in xilli hore la ogaado kansarka haya qofka. cilmibaaristu waxay salka ku haysaa natiijada iyo daraasayn lagu sameeyey 2,658 kiis oo kansarka ku saabsan. Lincoln Stein oo ka tirsan dhakhaatiirta macadka kansarka ee Ontario ayaa sheegay in kansarka uu yahay nooc cudur ah oo ku dhaca unugyada caafimaadka qaba ilaa ugu dambeyn ay koraan oo ay u kala baxaan si aan xakamayn lahayn. habka kuriimo ee kansarka waxaa laga ogaadaa noocyada tilmaamaha hidde-sidaha ee loogu talagalay dhisidda borotiinka jirka. Dr. Lincoln ayaa sidoo kale sheegay in hiddo-sheega jiinka oo dhan keliya uu yahay 1% ayuu yidhaahday. dhakhaatiirtuna aysan wax badan ka ogeyn karin marka ay daweynayaan bukaanka 3 meelood meel. taasina waxaa ugu wacan in aysan suuragal ahayn in la ogaado sababta kansarka uu u haleelay unugyadooda. cilmibaaristu waxa ay muujinaysaa in kooxo saynisyahanaha oo ku kala sugan 37 dal ay ku qaadatay in ka badan 10 sano si ay u fahmaan 99% qaybaha cudurka kansarka uu ka kooban yahay. saynisyahanadu waxay intaa ay ku dareen in kansarka uu yahay mid cakiran oo ay horseedi karaan kumanaan waxyaabood oo isbiirsada. sidoo kalena ay jiraan meelo uu ka nugul yahay kansarka oo lala bartilmaameedsan karo dawooyinka la dagaalama waxyaabaha kordhiya fidintiisa iyo korriimadiisa intaba sababa. Dr. Betel oo ka tirsan macadka Wellcome Sanger oo ka tirsan cilmibaarayaasha ayaa sheegay in waxa ugu weyn ee aan doonayno in aan adeegsano waa tiknolojiyadda si aan u helno dawooyin la falgali kara nooca kansarka ee bukaan walba uu qabo. saynisyahanada daraaseeyey kansarka waxaa sidoo kale ay abuureen hab lagu ogaan karo kansarka qarsoon xilli hore. waxa ay muujiyeen in ka badan 5 meelood meel ka mid ah kiisaska kansarka ay ku jiraan jirka bukaanka ka hor sannado inta aan baaritaan lagu ogaan kansarka. Dr. Peter Van ayaa dhankiisa sheegay in ay abuureen hab xilli hore lagu ogaan karo dhammaan noocyada kala duwan ee cudurka kansarka. waxa uu intaasi raaciyey in habkan cusub uu ka dhigan yahay in ay hadda suuragal tahay in la abuuro hab cusub oo lagu baaro kansarka, taas oo muujin karta astaamaha kansarka xilli hore. cilmibaarayaasha ayaa bukaanada qaba cudurka kansarka kula taliyey in dhakhaatiirtooda ay la wadaagaan haddii ay isticmaalaan dawooyinkii dhirta ka samaysnaa, maadaama qaar ka mid ah maadooyinka dawooyinkaasi dhirta ku jira ay lid ku noqonayaan dawada kansarka loo cuno ee caadiga ah. Professor Maria oo ah madaxa xarunta qalliimada cudurka kansarka ee ku dhaca naasaha ee ku yaala magaalada Lisbon ee dalka Portugal ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda aan lahayn caddayn ah in dawo dhireedka ay wax ka tarayso cudurka kansarka. dhakhaatiirtuna waa in ay ka feejignaadaan oo ay bukaanka qaba cudurka kansarka ay weydiiyaan dawooyinka kale ee ay isticmaalayaan. Professor Maria waxay kaloo sheegtay in ay aad muhiim u tahay in dadka bukaanka ah ee qaba cudurkaasi ay weydiiyaan dhakhaatiirtooda inay dawooyin kale oo dhir ka samaysan ay isticmaali karaan marka cudurkaasi uu maqaarka jirka ku faafo. Maria waxay kaloo sheegtay in halista ay tahay in dawooyinkaasi dabiiciga ah ee dhirta ka samaysan ay caqabad ku noqdaan dawooyinka casriga ah ee loo qaato cudurkaasi. qaarkoodna ay sababaan in boogaha ku yaala jirka aysan dhaqso ku bogsoon. dawadhireedka qaarkood ayaanan ahayn kuwo aan u wanaagsaneyn boogaha ku yaala dadka qaba kansarka naasaha. dawooyinkaasi dabiiciga ah waxaa ka mid ah kuwa laga sameeyo toonta, sanjabiilka iyo huruudda. xarunta cilmibaarista cudurka kansarka ee dalka Britain ayaa sheegtay in mararka qaar ay dhici karto in dawadhireedka ay caqabad weyn ku noqdaan dawooyinka caadiga ah ee loo cuno cudurka kansarka. waxayna xarunta sidoo kale sheegtay
sheegtay in ay habboon tahay in dadka bukaanka ah ee qaba cudurka kansarka ay iska ilaaliyaan cunooyinka iyo cabitaanada qaar sida canabka iyo liinta oo wax weyn u dhimi kara dawooyinka loo cuno cudurka kansarka. hay-adda daraasada samaysay ayaa sheegtay in qaar ka mid ah dadka qaba cudurka kansarka ereyada qaar ay u arkaan kuwo aan habbooneyn oo aysan ahayn kuwo aan dhiirigelin marka aad tilmaamayso qof qaba cudurka kansarka. sidoo kale xarunta taageerta dadka qaba cudurka kansarka ee fadhigeedu yahay UK ayaa waxa ay ra'yigooda weydiisay 2,000 oo ruux oo qaba cudurka kansarka ama horay u qabay. waxa ayna sheegeen in aysan wanaagsaneyn adeegsiga ereyada qaar sida waxa uu ku guuldareystay dagaalkii uu kula jira kansarka, wuu daaladhacayaa, wuu la dhibaataysan yahay iyo kuwo kale oo la mid ah. taa beddelkeedana ay habboon tahay in la adeegsado luqadda iska caadiga ah sida in lagu tilmaamo qofkani waa mid la nool cudurka kansarka.